marka waa inaad wadataa wad ku nafsanaysaa عجيب 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 إلهي ولا يسود دعي ولا إلهي سبحانه وتعالى الله أكبر أكسجين كاس عجيب 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 إلهي وكفيت حنون كاس كفيت بسم الله الشافي إلهي وكفيت أسود دعي إن شاء الله البعث ممكن هذا وهذا بسم الله الشافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بركة حلوصة نقرية هرتو إلهي وحن كبرية ولا أنا وحن كعصانية إني أسود دعيان ستيج أفراد بتكون مرية لبس سنة iyo hadda ku hayay cudurkan kansarka 2 sano ku hayay haddana waxa lagu sheegay inuu faafay oo meel kale waa tartiib laakiin gacanta iyo waxa sheegtay maskaxdeedu inuu soo gudbay lagu yiri meel kasto korkeyga uu galay korkaada meel kasta uu galay inta ka ahayn alxamdulillah wadnaha iyo kaliyaha kansarka wuxuu galay jirkaaga oo dhan marka laga reebo kaliyaha iyo wadnahaaga beerka afka ugu horeeyo kale waa laga daaway walaalayaal faatixada iyo ducada iyo quraanka ku kaalmay in ilaahay subxaanahu wa ta'ala korkiisa uu ka dhigo ma artay mid aanan ku jirin oo ilaahay uu dhaafiyo anigana wuxuu igu yimid inaan quraanka ku akhriyo idinkuna u soo duceeyo hadafka aan u soo galnayna waa intaas cabdiraxiim qisayso waa qiso cajiib ah ilaahayna subxaanahu wa ta'ala u baryayna caafimaad taama inuu degdeg u siiyo insha Allah cabdiraxiim marka hore aan kugu soo dhaweeyo insha Allah akhi salamu hayya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا عليال كلجين واني السلامي الحمد لله إلهي نمعديسي غير كيسة وحيقول لي كانسر كان مركب حوية هاي stage 4 but الحمد لله إلهي نمعديسي واي كانسر إيو هرقب وح إسلام نبي الله أيوب عليه السلام عليه السلام نبي مالك بدنا بوها وقب مال بدنا وها وح عرور بدن وها hal maalin baa ilaahay u imaaday wix dhan laga qaaday daafiye marka wuxuu ku duceysan jiray ilaahay oo markaan ku caabuday yaa isi awood iyo aan kugu caabudo allana waa uga jawaabay يعني إله هو وديسن جرى ما هي المال كيلو سعوديو ما ويدسن كيلو سعوديو لازم ما هي ما حس من ما ويدسن وحو ويدسن جرى إله واو هذا أبورته هذا كو عابن إلهي كل إنه جرن أي مركان كو عبداي عندك كدو كنايو أو كو سجوداي إلهيو مركاسيت strength سي الله هذا سي معناها قوة أبودي ها سها صلادي سيدي أو تشوع كوسوجل شيطان كوسوجل الحمد لله إله عسى وجل نبي سوهاي وكبلو كريه every نبي والله صادري كل جودنا امتحان على مرسي الحمد لله عليك مرك امتحانك إلهي ما أنتكم مرسي يعني وتكون أنت عز مسلم حان عز مسلم محبي أن الحمد لله ورب العالمين ذاتك عافماتك أما وعاء قرعية أما عاء عيتماية أما واحد ثمينية أما ميراث أما تدريبية أما حوالات دعية وعافماتك هذه استخدام استعمالية عافماتك والله مهم واي الحمد لله حديث سيدنا ولا قصوري نبي صلى الله عليه وسلم وكهلا أن حالو عافماتك مركا يرتورت داك فايدة سن يا عافماتك هذه يا وقت جاجا وحوا مرتدي قبل مرضك بيهي تنمي 5 قبل 5 نعم شن كور كفى يسو شن يرد انت تهيدا اودنا وقفى يسو سها انت مركا انت فقري وقفى يسو يس عافمات انت جرك كفى يسو سه ها سمركا الحمد لله رب العالمين عافماتك هو مهم وقت دقيقة كستو وما انت كل مرسو وإنها كحساب سنتا لكن هذا سو كرمات مرات بيقصون نقطتين waxaa igu soo kordhay xoogaha yar kooma igu soo kordhay kaas cudurkiiba haddana soo dabalkacay marka qaybta maskaxdu taaftay markaaseeto alxamdulilah waa taasna mid cad nimca kheyr alla waaye soo ilaaha ugu mahad celiyaa isana ciyow iga soo kiciyo marka ilaahay mahadiisa waaye hadda cimraa u socdaa insha allah waxaan iga codsanayaa rajada alla waa weyn tahay ilaahay haddaa ku aqbasho wax kasto naftaada maanta maraha u mahad celiya haddii xunye iyo hadduu fiican yahaybo alxamdulilah dheh alxamdulilah wanacmahu
waxaan dhakhaatiirtu ay kugu leeyihiin rumaysanay may abadan maxay ku yiraahdeen ilaahay maynuu kala turjumayaa may 12% iyo lamaan iga turjumayn may waxay kugu dhaheen 12% haa yacni maxay ka wada waxay ka wada nolosha intaasaa kaaga hirtee noloshaada 12% ay ka hadda haa saasay kugu dhaheen haa laakiin bal ilaahay igama turjumaysid ilaahay kama tarjumaya igama turjumaysid yaqiinta waad qabtaa haa alxamdulilah ilaahay waa ku faraxsane hadda hadduu isoo waco diyaar baa ahay inaan baxo hadda saacadan daqiiqadan ilaahay kuu qadaro hadduu ii qadar halkan second nacam hadda hadalkan uu lee qabto ku baxo maxaabi were walaal baa ila joogay markii labaad ee aan qur-aan ku akrinaynay oo ducaynay way kasoo waxbay usoo sheegeen laakiin annaga ilaahay baa subxana wataala aaminsannahay ilahna waxaan ka rajaynayaa ducadiina inuu ilaahay kula jiro insha allahu tacaala usoo duceeya haddana cumru aadaya soo cibaadaysanaya unala joogaya barwaaqaysanya insha allahu tacaala noloshiisa allaha barwaaqeeyo biidni illaahi albaari ducadiina ha ka iloobina insha allahu tacaala walaalkay magacaaga saddexaad ii sheeg maxamed ayo maxamed cabdiraxiin saalax ilaahayna subxana wataala waxaan uga baryaynaa caafimaad taama inuu deg deg u siiyo insha allah cabdiraxiim marka hore aan kugu soo dhaweeyo insha allah akhii see lagu hayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kulligiina waan is salaamay alxamdulilah ilaahay nimcadiisa iyo kheyrkiisa waxaa igu dhacay cancerkana marka wuxuu yahay stage 4 but alxamdulilah ilaahay nimcadiisu waay cancer iyo hergab wax isdhaama ma laha marka ilaahay hortiis joogtid ma fahanteen marka alxamdulilah markaa wax aa ka aragta caafimaadkaa waa inaa ilaahay u nahad celisaa sababtana waxaa waaye ase ayaa u noqonaynaa adduunkan waxaan ku nahnay kumeel gaar runta haddii laga hadlo laakiin kumeel gaarkaas shaqo adag buu leeyahay horta ilaahay waxaan ka baryayaa walaalaha waxaan ka codsanayaa inay usoo duceeyaan stageka afraad baad ku maraya 2 sano iyo hadda ku hayay cudurkan kansarka 2 sano ku hayay haddana waxaa lagugu sheegay inuu faafay oo meel kale waa tartiib laakiin gacanta iyo waxaad ii sheegtay maskaxdeedu inuu sugud lagu yiri meel kasto korkayga wuu galay korkaada meel kasta wuu galay intaa ka ahayn alxamdulilah wadnaha iyo keliyaha kansarka wuxuu galay jirkaaga oo dhan marka laga reebo keliyahaaga iyo wadnahaaga beerka afka ugu horeeyo nacam kale waa laga daaweeyey walaalayaal faatixada iyo ducada iyo qur-aanka ku kaalmay in ilaahay subxaana watacaala korkiisa uu ka dhigo maartay mid aanan ku jirin oo ilaahay uu dhaafiyo anigana wuxuu igu yimid inaan qur-aankan ku akhriyo idinkuna usoo duceeya hadafka aan usoo galnayna waa intaas walaalkeen adigu inaad ka hormartaa laga yaaba adiga i daawanaya inaad ka hormartaa laga yaaba laakiin isaguu kuu soo ducayn aduguna usoo ducee waxaadna ogaataa waktigu ilaahay ku siiyey sheekh waktiga iyo qofka dhalinyarada maanta ku ciyaaraysa waktigu ilaahay siiyey wallaahi dhalinyarada waqti fiican ilahay horta uu siiye alxamdulilah iyakana ilaahay soo hanuuniyo adduunyo wax ay tahay oo maanta ilaahay abuurta ma laha the only way adduunya uga badbaadi kartid inaad tooba dhahdid bini aadanaad tahay wax waa qaldi kartaa laakiin haddaad salaadaada saxdid wax kasta waa kuu saxmaya nabiyullaahi ayuub calayhi salaam nabigii u maalka badnaa buu ahaa ugu maal badna u ahaa ugu caruur badan u ahaa hal maalin baa ilaahay u imaaday wixii dhan laga qaaday dhaafiye marka wuxuu ku ducaysan jiray ilaahayoo markaan ku caabudaay yaa isii awood iyo aan kugu caabudo allana waa uga jawaabay ma weydiisan waxaas midna ma weydiisan wuxuu weydiisan jiray ilaahow adaa i abuuratay adaan ku caabin ilaahay kale inuu jirin ay markaan ku caabudayo aan ku dukanayo oon ku sujuudayo ilaahayow markaaseeto strengka isii awoodii haa salaadii sidee oo tashuuc kuu soo gelin shaydaan ku soo gelin alxamdulilah ilaahay casaa wajal nebigiisu ahaay waa ka baloogareeyey every nebi uu alla soo diray kulligoodna imtixaana la marsiiyey alxamdulilah as a muslim I'm happy and alxamdulilah rabbi alcaalamiin waa ku ducaynaynaa waa ku jecelnahay waa kula jirnaa biidni illaahi albaari
magac iyo moral iyo intaba oo garab taagana insha allahu tacaala walaalaha xanuunsan ee dhan iyagu iyo caaspaalada ku jira ixta aan socon karin aaba aan hadda karin ama oo dhib ku dhacay intaba ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu ilaahay caafiyo walaalkina ilaahay uu caafiyo idinka ilaahay caafimaad inuu siiyo caafimaadka maxaa ugu muhiimsan looga faa'iideystaa caafimaadka caawa والله caafimaad haysta caawa dadka caafimaadka u ama waxa wax qoraya ama waxa caytamaya ama wax sameynaya ama meelahaas umada dhibaya ama xoolo dhacaya oo caafimaadkoodii si khaldan u isticmaalaya caafimaadku la muhiim waaye alxamdulillah xadiisiidana waa lagu soo wariyey